السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد وناكشن عيد مبارك. anigoo ku hadlaya magaca dalada guud ee ururada Soomaalida ay ku midaysan wadanka Holland marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan Ifsaan. waxaan jecelahay maalintan weyn ee muhiimka ah ee farxadda leh inaan dhammaan ummadda Soomaalida meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda gaar ahaan Soomaalida Holland inaan iraahdo ciid wanaagsan, ciid mubaarak. maalintan weyn waxaan idin soo gudbinaynaa hambalyo, waxaan idin leenahay farxad ku ciida, caruurtiina, reerihiina iyo saaxiibadiina farxad kula ciida meel walba aad joogtaan. walaalayaal, sida aan la wada socono cudurkan safmarka ah dad badan oo Soomaali ah ayaa ku dhintay. marka maalintan weyn waxaan jecelahay in dadkii Soomaaliyeed ee cudurkaas ku dhintay inaan u duceyno in Ilaahay dambigooda uu dhaafo, naxariistii jannana uu siiyo. sidoo kale dadkii uu ku xanuunsaday ama weli ku xanuunsanna Ilaahay inuu siiyo caafimaad taam ah. sidoo kalena in Ilaahay cudurkan uu dhinac naga mariyo. walaalayaal, dadka Soomaalida ah waa inay si fiican waqtiga xaadirka ah ay u fikiraan oo ay wax yar dib u jaleecaan wadankoodii quruxda badnaa oo ay ka yimaadeen ama ay ku sugan yihiin oo barwaaqada ah oo leh xeebta ugu dheer Afrika 333 kilomitir, oo leh webiyada, oo leh beeraha, oo leh xoolaha, iyadoon la gaarin weli macdanta dhulka ku jirto. waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka Soomaalidu in ay is-aaminaan oo isjeclaadaan oo qulubtooda Ilaahay isku soo duwo si ay wadankoodaas quruxda badan ay u hagaagsadaan oo ay nabad ugu noolaadaan oo kheyraadka ugu jira ay ula soo baxaan. waxaa loo baahan yahay in la is-aamino, waxaa loo baahan yahay in la is-cafiyo, waxaa loo baahan yahay in walaal la noqdo. qof walba oo Soomaali ah waxaa laga rabaa qofka kale oo walaalkiisa maalintan weyn inuu cafiyo, uu saamaxo, iyo annagoo dhanba guud ahaan inaan is-cafino, in Ilaahay dambigeena dhaafo, qulubteennana maaragtuu kusoo duwo in wadankeenaas quruxda badanne aan hagaagsano. walaalayaal, waxaan dadka Soomaalida ku dhiirigelinaynaa meel walba ay joogaan inay noqdaan dad isku duuban, isku xiran, iswalaashada, isku warqaba, si wada jir ahna uga fikira wadankoodii iyagoo mar walba maskaxda ku haya maxaan u qaban karnaa dadkeena walaalaha Soomaaliyeed ee wadankii ku dhibaataysan. mar kale waxaan idin leenahay farxad iyo rayn ku ciida. sanadkan sanadkiisa Ilaahay caafimaad iyo farxad iyo nabad iyo wadankeena iyo hagaaga hanagu gaarsiiyo. aad baad u mahadsantiin. calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh.